السلام عليكم أصحاب شرفت له قيبتهم waxaan ku baranaynaa everyday words ereyada oo maalin kasta la isticmaalo yani wax kale ma cashirka ka soo qaadnay kana waa boobsiinaynaa marban inaan ku daana marabno because waxa ka soo raabixinay ereyada kuwana qofku wuxuu ka caawinaa haduu rabo inuu barto ereyada qoraalkooda erey kasta markuu soo baxo intuu istaajisto uu ku celcelin kara qofkii la qoraalka ereyga uu ka barto okay ereyga ugu horeeyo oo everyday english kamid ah unit 1 ka ku soo baranay wuxuu ahaa hello oo markii qofka la salaamayo marka hello waa la isku salaama hi waa la isku salaama maxaa farq u dhaxeeyo hi waa iska yani informal language way dadka asxaabta oo kale dhalinyarada markay salaamayaan hi laakiin hello markii laga hadlayo ingiriis ahaan iyadana sababta farq u dhaxaysa maxaa waaye waa formal way oo dadku waaweyn markaa salaamayso oo kale dhaqaatiirta macallimiinta waxa la diidaa in ciyaalka xaafadda kale u salaantid marka farq u dhaxayo hello iyo hi salaan leeyahay لكن فرق قدرتنا واديت كاس لواي مثل حواي و يعني فورمال واي dadka markaas ixtiraam u salaamay dadka weyn dadka markuu warayna kala kulanto kaleeto si formal na salaamto hayna waa informal oo yaa ka xafid qaabka isku salaamay dadka si qanani okay goodbye nabadey waad soo aragnay unigana ku soo aragnay waxa kale inuu ku soo aragnay please oo fadlan okay waxaan kala soo aragnay please oo fadlan ah waxaan kala ku soo baranay unit 1 ka thank you oo ah mahadsanid waxaan kala ku soo baranay thanks kaligeed oo you aan la soconin oo ayna mahadsanid ah waxaan kala soo baranay okay waxaan soo baranay today oo ah maanta and oo isku xir ah iyo and maxaa way iyo aniga iyo adiga markaa dhaysido kaleeto ayada iyo asaga waa isku xirkii iyadii af soomaaliga meeshii naqanaysay and waxaan kaloo kusoo baranay with oo ah la jir yani la jir maxaa waaye sheygan maca waa af carabi ahaan maca la jir I am with my mom waxaan la jiraa yani waxaan la joogaa oo kale hooyaday with my father with my brother la jir waa marka maca kale a cup of tea asoo baran samayn koob shaah حتاني كوب شاي a cup of tea أصبرنا coffee a cup of coffee نوصلنا سمين sugar أصبرنا سكرهات a sandwich هذا أركونا مصبرنا سمع لكن sandwich خف كسر تخانة روتية أو sandwich كه لكن إذا نبحث تاين تدعني إذا بحث تاين تاي هل أو تاين تاي a sandwich هل sandwich أمر بعض okay an apple okay apple نقف كسر تقانا apple تفاح واي أنت أنا سيدو كالحال واي مركا A أن فرق يقول حيثو A وحلقور مريا وحي أو consonant أما شي بنائي أن وحي فاولة شنت فاولسك A E I O U جرام كباركنا يونت كم كدمينا كشرحنا هسكو ريبي مكاسيجا أن وهذا حال an apple marka dhaysi marka maxaa waaye adigoo dhaay camal waaye hal tufaax okay mom oo kala hooyo ama mother daddy ama iyo di waalid dambe laga reebay halaan laga reebay dad aabe ama daddy oo ku soo arkin imaginate daddy oo wanaagsan aab markii ilaahay waxaan ku soo baran name oo magaca ahayd name magac first name waa magaca ugu horeeyo عندنا ولو حسن أحمد جامع حسن وكل first name حليمة محمد جامع حليمة first name surname كي أسكال مكاسيه و last name أما هو أسيقنا surname и last name حاول حيو يعني لن كان British كا و British English كا وحيستا معنا surname American English كان محيدها last name لكن مركز تنحلو سعوده مرع وضم بيواي حكرا الله يقانه family name okay magaca saddexaad kan ugu dambeeyo family name ka family name waa laha surname waa laha last name waa laha isku mid waa markan objects and things ashyaada maxaa soo barnaayan a book hal book a phone hal telephone marka dhin what is this in English it's a book it's a phone soomay eed marka hal u taagan tahay an hal u taagan tahay إيه استعماله وحي أو consonants أن وحي vowels a laptop
a laptop hal laptop a bag hal boorso ereyga bag bag boorso waa a bag hal boorso a watch hal saacad oo dhala camal waa saacadaas ka dhana laakiin iyada maxay ku tusaa hal kaliya ku tusaa a watch saacad a photo sawir a house guri madama ay sheegay because ay aan hal element markaas xasuusno a house guri la leeyahay misada a bus a bike waa bike baskil bike 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 a bike baskil an umbrella dalad waa an loo siiyey shaqada ka bilaabata an umbrella dalad umbrella marka maxaa waaye dalada roobka laga dhigtana dalad good morning subax wanaagsan salaam soma good afternoon galab wanaagsan good night habeen wanaagsan nice to meet you kulanti wanaagsan maxaa waaye polite expression waa markaa si adaab leh waa baratay inaad aadid marka waa barasho wanaagsan oo kale see you later dib iska arkeenaa sleep well yani hurdo caafimaad la ku rajeynaa hurdo wacan hadda saa qof ku macsalamaysa markaa dhehaysid ku seexanaya bay dhahdid sleep well saas u niyeyso have a nice day maalin wanaagsan how are you anaa su-aalkaa ka maqan sidee tahay okay numbers intaan gelin hadda waxaan soo barnay erey kale oo la dhahayo what a lovely day ereygaas saartu isticmaal soomaalida waxaa dhihi kartaa what a lovely day ala maxay maanta maalin qurux badan tahay quruxa ku fasiri kartaa ala maxay maanta maalin jawi degan tahay what a lovely day ala maxay maanta cimiladeeda wanaagsan tahay oo kaleeto what a lovely day whatever dhihi kartaa okay marka kaas ereygaas meesha kuma jiro laakiin cashirkiyaa kusoo qaadanaya numbers 1 to 10 qof kasta way akhri kartaa soo maahan okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay marka unit 1 ereyadiisii waxaan kasoo qaadi karno cashiradiisii intaasuu nagu egyahay hadda marka video waxaa britol hadduu ilaahay nafta nagu gaarsiiyo waxaan si tartiib ah aan orod lahayn aan ugu hadlaynaa garaamarkeeni nagu horreeyey oo chapter 1 nagal raba inaan ku fahanno step by step markaan u fahanno tusaalooyin tiro badan oo garaamar iskala shaqey doonaa britole waxaan samayn doonaa sidoo kale telegram group oo su-aalaha garaamarka kasoo shaqeysiina kusoo diri doontiin laakiin ilaa ay in xad dhaaf ah life ugu shaqeynaynaa oo videoda ugu dhex shaqeynaynaa marka intaa muuqaalkiisa xigo ayaan kula kulmayo waxaa idinkaga tegayaa horumar iyo caafimaad